السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال كسو دوادا موقال عصب maanta waxaan ka hadlaynaa looska wuxuu ka mid yahay midhaha faa'iidada badan ee caafimaadku u leeyahay bini'aadanka. dad badan oo Soomaaliyeed waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan ama ay cunaan looska, halka kuwa kale aysan qaadan karin xaalado xasaasi ah aysan jeclaysan. inta badan waxay jecel yihiin in ay cunaan looska. muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa ama aan kaga faa'idi doonaa cunista uu leeyahay looska. wuxuu leeyahay faa'iido badan jirka bini'aadanka. faa'iidooyinkaas oo lagu xaqiijiyey baarista khubaraha caafimaadka ee kala duwan. wuxuu faa'iido u leeyahay looska caafimaadka wadnaha. loosku waxaa ku jiro saliid aan hufnayn oo aad u sareynin, taasoo faa'iido ballaaran u ah wadnaha, sida ay xaqiijiyeen khubarada caafimaadka. sidoo kale looska wuxuu la dagaalamaa cudurka loo yaqaano kolestaroolka, oo ah subaga fadhiista xididada wadnaha, kaasoo ka hortaga in uu joojiyo xanuunka wadna qabadka ah. sidoo kale loosku wuxuu daawo u yahay cudurka macaanka ee sokorta. daraasaad caafimaad la sameeyey waqti dhow ayaa lagu ogaaday in uu yareeyo sokorta 21% halista cudurka macaanka. sababtana oo la ogaaday in ay tahay looska oo loo yaqaano in ay ku jiraan magnesium, taasoo muhiim u ah in uu kontaroolo sokorta kor u kaca macaanka. cunista looska wuxuu muhiim u yahay dhagaxaanta ku samaysmata xameetida, taasoo markuu asiibo qofka xanuunka dhagaxa xameetida laga saaro. inta aan laga saarin dhagaxa xameetida, haddii ruuxa xanuunka asiibo ay daawo u tahay. sidoo kale waxaa la ogaaday cunista looska in uu wax ka taro cudurka kansarka. waxay kaloo ka hortagaan looska burooyinka ku samaysma jirka, waxayna xakamaysaa koriimadooda. cilmi baaris lagu sameeyey wadamo badan oo kala duwan ayaa lagu ogaaday dadka cuna looska isbuucii ugu yaraan 2 jeer 60% in ay ka hortagaan kansarka ku dhaca marawadka. looska wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay xasuusta maskaxda qofka bini'aadanka. looska wuxuu yahay cuntooyinka fudud, mana lagu dharko cunno ahaan. waxaa ku jiro fitamiino sida fitamiin A, fitamiin B3, taasoo kor u qaada shaqada maskaxda, taasoo siyaadiso qulqulka dhiigga mara xididada maskaxda. wuxuu kaloo aad u dejiyaa niyadjabka qofka oo la xaqiijiyey in uu looska wax ka taro, waayo waxaa ku jiro maado borotiin oo loo yaqaano serotonin, taasoo yarayso walwalka qofka ama niyadjabka. wuxuuna burburiyaa dhammaan niyadjabka soo weeraro maskaxda iyo qalbiga. looska wuxuu u shaqeeyaa sida loola tacaalo daawo ahaan niyadjabka, wuxuuna ka dhigaa qofka mid habi ah oo faraxsan. sidoo kale looska wuxuu muhiim u yahay hooyada uurka leh, maxaa yeelay waxay ka helaysaa maadada loo yaqaano folic acid. maadaama folic acid wax lagula dardaarmo hooyada ay tahay in hooyada uurka leh ay aad u jilciyaan, waayo waxay ka helaysaa tamar aad u ballaaran. waxaa kaloo muhiim u ah hooyada uurka leh koriimaadka uurka jiifka ama baybiga dhalan doono. haddii ay cunaan hooyooyinka uurka leh looska, waxay badbaadinayaan 77% carruurta ku dhalan doonto dhabar furanka. looska wuxuu kaloo muhiim u yahay lafaha iyo murqaha carruurta koraayo, maadaama ay korayaan carruurta, waana sababta lagula dardaarmo in ay cunaan looska carruurta. sidoo kale looska si joogto ah haddii aad cunto, wax cunto ahaan uma baahan doonto saacado kooban, balse badanaa dhaqso laguma cayilo, mana lahan dufan. looska wuxuu difaacaa maqaarka, wuxuuna ka hortagaa laalaabka maqaarka. sababta waxaa ku jirto fitamiin C iyo fitamiin E, taasoo yareeya laalaabka maqaarka ama duqowga maqaarka. waxaa kaloo xoojiyaa looska jiridda timaha
kana hortagaa bidaarta hormoonka qofka soo weerara. wuxuu kaloo ka hortagaa looska, daadashada timaha iyo soo gelidda agoolka timaha, nuurkoodana wuu dilaa, taasoo faa'iido ah in uu ka yareeyo agoolka soo gelidda timaha iyo go'go'a ama daadashada. sidoo kale wuxuu yareeyaa gaaska qofka qabo. ugu dambeyn, looska faa'iidadiisa lama soo koobi karo. dadka qaar wuxuu ku yahay looska hadday i cunaan allergic. iska dhaaf haddii aad isku aragto allergic cunista looska ama xadid cuniska looska. halkan ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeena cashirka. wabillaahi towfiiq. is aragti dambo xiise leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.